bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalinimo talaata taariikhduna ay ku beegan tahay 17 bisha saddexaad sanada 2020 qodobada aad ku daawan doontaan xogwada channel waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaare kheyre uu ambaxay dalka Itoobiya xilli ay sareyso cabsida coronavirus Mareykanka oo shaaciyay waqtiga ay joojinayaan tababarka ciidamada danab al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhigga Janaale Mareykanka oo warbixin dhaawac ku ah dowladda federaalka ka soo saaray xaaladda Soomaaliya amarkii uu ra-iisul wasaare soo saaray xalay oo maanta dhaqan galay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa channelkeena xogwada channel ku daawan doontaan haddii ay tahay daawada markii kugu horeysay fadlan subscribe inoo saar si aad u heshid warbixinada aan halkan soo gelino lana sii wadaag asxaabtaada adigoo noo sii share gareynaya waanad ku mahadsan tahay daawashadaada mar kale soo noqod wanaagsan aan ku bilownay ra-iisul wasaare kheyre ayaa u dhoofay Itoobiya xilli ay sareyso cabsida coronavirus ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa talaadada maanta wuxuu u socdaalay Itoobiya xilli ay sareyso cabsida coronavirus qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ayaa lagu sheegay inuu la kulmayo madaxda wadankaas war-saxaafadeedka ayaana lagu soo bandhigin ujeedada safarka iyo qodobada lagu lafaguri doono wadaxaajoodida labada dhinac Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka laga helay COVID-19 wasaaradda caafimaadka dalkaas waxay shalish xaqiijisay kiiskii lixaad ee xanuunkaas dilaaga ah gudaha Soomaaliya halkiis ayaa la hubiyay xilli baaris ay ku socoto tiraka waxaana la geliyay karantiilo muddo maalmo ah kahor intuusan u dhoofin Addis Ababa ra-iisul wasaare kheyre ayaa amray in la xiro goobaha waxbarashada 15 maalin ilaa iyo amar dambe xukuumadda ayaa tilmaamtay inay diyaarisay miisaaniyad gaaraysa $5 milyan oo lagula tacaalayo xaaladda la xiriirta ka hortagga cudurkaas wasaaradda caafimaadka oo walaac ka muujisay safarada shaqaalaha dowladda ayaa ku talisay in laga baaqsado safarada aan muhiimka ahayn wasaaradda gaadiidka ayaa iyadana 2 toddobaad joojisay duulimaadyada caalamiga ah si looga hortago in dadka ka imaanaya dibadda ay keenaan cudurka corona oo ah virus aad u faafa waa nooc ka mid ah hargabka oo qofka u dhiman karo astaamihiisu waxaa ka mid ah qandhan daran qufac iyo neef xiran Mareykanka ayaa shaaciyay waqtiga ay joojinayaan tababarada ciidamada danab taliska howlgalka Africom ayaa shaaca ka qaaday waqtiga uu ku egyahay oo ay joojin doonaan tababarada ay siiyaan ciidamada danab ee Soomaaliya oo ah ciidan si gaar ah loo tababaro iyadoo ay waaxda difaaca Mareykanka culays lagu saarayo dib u eegista joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika iyo meelo kale waxa ay saadaalinaysaa inay sii wadi doonto horumarinta waxayna ugu yeertay hilaaca guusha ilaa 2027 Miguel Castellanos ku-xigeenka agaasimaha howlgallada Africom ayaa hadalkaasi ku sheegay wareysi uu siinayay Military Times ciidamada Soomaalida ee dowladda Mareykanka tababarka siiso ayaa waxaa loo yaqaanaa Commandos Danab waana guuto ka tirsan ciidamada dowladda oo si gaar ah loo tababaray danab waa ciidamo leh kartida ugu badan si gaar ah gudaha Soomaaliya ayuu Miguel Castellanos isagoona tilmaamay inay rajeynayaan in tababarada ay joogsan doonaan marka la gaaro sanadka 2027 waqtiga ay Africom sheegtay inay joojin doonto tababarada ciidamada dowladda ee danab ayaa waxay ku aadan tahay 10 sano kadib markii ay ciidamada howlgalka gaarka ah ee Mareykanka ay markii ugu horeysay ka qayb qaateen tababar dhalaanka lagu siinayay sidii ay ula dagaalami lahaayeen al-shabaab ciidamada Mareykanka u tababaro dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay sanadkii 2013 waxaana lagu bilaabay ilaa 150 askari waxayna hadda tiro ahaan gaarayaan 800 askari ilaa 1000 askari wuxuuna qorshaha Africom yahay in ciidamadaasi la gaarsiiyo ilaa 3000 askari Bancroft Global Development oo ah shirkad aan dowli ahayn balse la shaqeysa wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa la siiyay qandaraaska qorista ciidamada danab ee loo tababaro dowladda Soomaaliya Bancroft Global Development marka ay diiwaan geliso ciidamada waxaa si toos ah ugu wareejisaa taliyaasha ciidamada Mareykanka waxaana markaas wixii ka dambeeya la siiyaa tababar ku saabsan farsamooyinka dagaalka iyo sidii ay howlgallo ugu sameyn lahaayeen goobaha halista ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada kooxda al-shabaab howlgalka Africom waxaa la sameeyay sanadkii 2007 si looga hortago khatarta al-Qaacida ee qaaradda Afrika ilaa haddana si rasmi ah looma oga guutooyinka ka jooga Soomaaliya sabab ku saabsan badbaadinta ciidanka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga Janaale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar rogaal celis oo dagaalyahanada al-shabaab saacadihii la soo dhaafay ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala duleedka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose weerarka oo ahaa mid culus ayaa raggii fuliyay waxa ay la bartilmaameedsadeen saldhig duleedka Janaale ay ka sameysteen ciidamadii dhawaan qabtay deegaankaasi
wararka ayaa sheegaya in weerarka uu socday in muddo ah oo ay labada dhinac sidoo kale isku wadaarsadeen tiro madaafiica. Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku dhintay ugu yaraan 1 askari oo ka tirsanaa ciidanka Bangarafta Soomaaliya ee dhawaan la geeyay deegaanka Janaale. Ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka xigay intaba. xaaladda ayaa hadda ah mid degan waxaana ila deegaanka oo inoo sheegeen in ciidamada dowladda ay howlgallo cusub ka bilaabeen duleedka deegaanka Janaale oo maalin ka hor ay si buuxda ula wareegeen ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxaa sanadihii u dambeeyay ka talinayay dagaalyahanada Al-Shabaab. Mareykanka ayaa warbixin dhaawac culays ku ah dowladda federaalka ka soo saaray xaaladda Soomaaliya. warbixin sanadlaha oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka soo saartay xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa eedeemo culus loogu jeediyay dowladda federaalka si lamid ah kooxda Al-Shabaab. warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab iyo maleeshiyo beeleedyo ay ku kaceen xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ka dhana oo ay ku jiraan dilal ka baxsan sharciga oo ka dhana dad rayid ah. ciidamada dowladda ayaa sidoo kale lagu eedeeyay mas'uuliyadda dad la waayay jirdil falal cadowtooyo kuwa ka baxsan bini'aadanimada iyo dhaqan liidid ama ciqaab ah si lamid ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo maleeshiyo beeleedyo. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxa ay geysteen xarigyo ay ka dambayso siyaasad oo ay ku jiraan kuwa ka dhana suxufiyiinta ayaa lagu yiri warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. warbixinta ayaa sidoo kale dowladda ku eedeysay ficilo dhowr ah oo musuqmaasuq ah, xadidaadda iyo istirstaaga in dadka ay ka qayb galaan hanaanka siyaasadda iyo si qaldan ugu adeegsada caruurta askar ahaan si lamid ah maleeshiyada ahlu sunna iyo maleeshiyada beeleedyada. dhanka kale warbixinta ayaa si gaar ah ugu eedeysay Al-Shabaab iyo ahlu sunna rabshado ka dhana haweenka iyo gabdhaha taas oo qayb ahaan sabab looga dhigay ficil la'aanta dowladda federaalka. maleeshiyo beeleedyada iyo Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay inay sii wadaan xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha. warbixinta ayaana si gaar ah Al-Shabaab ugu eedeysay inay fulisay xadgudubyada ugu daran xuquuqda aadanaha ee ka dhacay gudaha Soomaaliya. amarkii ra'iisul wasaare Khayre uu soo saaray ayaa maanta dhaqan galay. waxaa maanta inta badan magaalada Muqdisho ka dhaqan galay amarkii xalay ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee ku aadanaa in la xiro goobaha waxbarashada sababo ku aadan cudurka coronavirus. xarumaha iskuulada iyo kuwa jaamacadaha ayaa maanta badi hirgeliyay amarkaasi iyaga oo fasaxay ardayda lana wadaagay fariinta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee ahayd in la xiro muddo ilaa 15 cisho ah si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. tallaabadaas oo muhiim u ah xakameynta cudurkaas oo faraba'an ku haya caalamka ayaa waxaa sidoo kale si aad u bogaadiyay dadka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale xalay shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay 5 milyan oo doolarka Mareykanka ah u qoondeysay la tacaalidda cudurka coronavirus. dowladda federaalka ayaa hore u soo saartay amar lagu joojiyay duulimaadyada caalamiga ee garoonka Aadan Cadde kaas oo caawa kadib dhaqan gali doona. sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta hakiyay muddo 15 cisho ah howlaha waaxda faraha ee hay'adda CID-da oo bixisa warqadda dambi la'aanta. dhammaan tallaabooyinkaas ayaa qayb ka ah qorshaha ay dowladda dhexe ee Soomaaliya uga hortagayso COVID-19 iyadoo sidoo kale ku dhawaaqday inay doonayso la tacaalidda cudurkan lacag gaaraysa 5 milyan oo doolarka Mareykanka ah.